وعنا wanaagsan daawadayaal wariye maxamed cali farcade ayaa tagay furmaha dagaalka wuxuu la kulmay kabtan ayuub waxa uu sidoo kale warbixino ka soo sameynaya furmaha dagaalka wariye maxamed cali farcade dad badan oo reer Puntland ah aad bay ugu kacsanayeen oo waxay badalbadeen in la soo masaafuriyo wararkii ugu dambeeyay duqeyntii ka dhacday dhulkan Buurleyda ah ee Mareykanka madaxweynaheeda uu sheegay in lagu soo wargeliyay oo uu saxay in duqeyntaas la fuliyo yaa loo maleynaya in lagu qaarajiyay muuqaalkan ayaan ku eegaynaa bal soo dhawaada daban daawadayaal wararka ku saabsan dhinaca Puntland si toos ah ayaan idinla socodsiinaynay maalmihii ugu dambeeyay maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha February 2025 maalin axad ah warar dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymihii dhacay waxaana la warinayaa in lagu dilay hogaamiyaal halis badan oo ka tirsan kooxda Daesh sida la wariyay duqeymahan waxa loo badinayaa in lagu beegsaday xubno halis ah oo kooxda Daesh ka tirsan oo godad ku jiray waxaana la sheegay in hogaamiyaasha la beegsaday ay yihiin kuwa wanted ahaa oo dawladda Mareykanka ay daba taagneed in muddo ah sida ay wararku ay sheegayaan daawadayaal waxa la beegsaday godad waaweyn oo madaxda Daesh ee gobolka Bari oo dhan ay ku jireen kadib ilo sirdoon oo la isku haleyn karo oo xaqiijiyay in godadkaasi ay ku jiraan kooxaha argagixisada dawladda Mareykanka waxay sheegtay in qatar badan oo geeska Afrika ka jirtay oo raggan ay ku hayeen gabi ahaanba meesha laga saaray Puntland war ayay soo saartay dawladda Soomaaliya war ayay soo saartay Puntland waxay u mahadcelisay dawladda Mareykanka oo howlgalkaasi xagga cirka ah ka taageertay halka sidoo kale la warinayo in dawladda federaalka Soomaaliya iyaduna ay sheegtay in lagu soo wargeliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka weerarkan uu dhacay warar hordhaca oo aan la xaqiijin waxay sheegayaan in goobaha la beegsaday ay ka kooban yihiin ilaa iyo 5 bartilmaameed oo laba god oo waaweyn ay qayb ka yihiin waxaana la rumaysan yahay hogaamiyaal ajaanib ah oo halkaas ku jiray in la qaarajiyay kooxda Daesh jab weyn ayaa soo gaaray waxaana la rumaysan yahay in ragga halkan looga dilay ay lafdhabar u ahayd Daesh ta caalamka oo dhan dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto beegsiga ay ku hayso kooxaha argagixisada isla markaana la joogo xilligii la soo afjari lahaa kooxda Daesh hogaamiyaal tira badan ayaa horay looga dilay waxayna sheegayaan inay sii wadi doonaan wax kasta oo dhaca dadaalada ku saabsan waxa ay ugu yeereen jihaadka ee ay ka wadaan meelo badan oo dunida kamid ah oo Soomaaliya qayb ay ka tahay hadaba daawadayaal sida warar kale oo soo baxaya ay sheegayaan kooxda Daesh ayaa ku qasbanaan doonta inay dhulkan isaga guuraan maadaama cir iyo dhulba culays badan uu ka haysto kooxdana aysan awoodin inay iska difaacdo weerarada xoogan ee har iyo habeenba ku socda hadaba markaan dhinaca kale ka eegno daawadayaal dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland waxa muuqata inay isku mowqif aysan ka ahayn arrimaha dagaalka dawladda Puntland waxay u mahadcelisay dawladda Mareykanka halka dawladda federaalka Soomaaliya ay leedahay waan ugu soo wargeliyay weerarkaasi iyadoo dawladda Soomaaliya ay reer Puntland ku eedeynayaan inay ku dayacday ciidanka reer Puntland inay ku garab siiso dagaalka kooxaha argagixisada sida daraadeedna dawladda Soomaaliya aysan daacad ka ahayn in ay la dagaalanto kooxaha argagixisada oo micnaheedu ay tahay tani in dawladda Soomaaliya ay tahay dawlad iyadiiba argagixisada siyaasadeynaysa la dagaalankooda kooxda Daesh guulo waaweyn ay ka soo hoyeen ciidamada dawlad goboleedka Puntland ciidanka Puntland ayaa la wareegay talisyo muhiim u ahaa kooxdan waxaana talisyadan ay ku yaalaan meelo aad uga fogfog magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ee gobolka Bari Daesh ayaa laga dilay saraakiil gacanta ciidamada Puntland ku baxay oo ajaanib ahaa inta ugu badan dadka la leynayo waa ajaanib waana waxyaabaha dadku ay isweydiinayaan sababta keentay in ajaanibta ay iska soo hormariyaan ragga Soomaalida ah ee sheegay inay jihaad rabaan oo markii loo tago jihaadka ka cararaya sidoo kale daawadayaal Puntland ayaa wacad ku martay in dagaalkan uusan istaagi doonin oo uu sii socon doono wax kasta oo dhacana dagaalkan uu noqon doono midkii lagu ceebtiri lahaa kooxaha argagixisada ee ku sugan dhulka Puntland dagaalkan waxa ay hadda ku jirtaa bil iyo 2 maalmood waxaana bishaasi iyo 2 maalmood ee dagaalkan ay ku jiraan ciidamada Puntland ay gaareen guulo waaweyn oo beesha caalamka ay ku taageereen halka dawladda Soomaaliya iyo Puntland khilaafka u dhaxeeyay uu saameeyay dagaalkan
dowladda Soomaaliyana ay sheegayso inay kaalin ku leedahay dagaalkan, laakiin Puntland ay sheegtay in iyada uu u gaarayahay dagaalkan isla markaana Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta ay ka garab siinayaan in Puntland ay ku guuleysato howlgallada ka dhanka ah kooxda Daesh. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sidoo kale xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka qoraalkii uu qoray uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay iska kaashadeen howlgalka dhacay, taas oo Puntland in kaligeed aysan howlgalka ku ahayn ay ku daliishanayso. howlgalkan guulaha laga kala sheeganayo wuxuu ceeb ku noqday Puntland iyo dowladda Soomaaliyaba, waxaana muuqata in sadbursi uu noqday guulaha dagaalka xilligan laga gaarayo. dhinaca kale daawadayaal, Maxamed Cali Farcade oo ah wariye Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah aadna baraha bulshada u haystay maalmihii ugu dambeeyay oo reer Puntland ay lahaayeen ha laga soo eriyo deegaanadeena, ayaa ugu dambeyn wuxuu tagay furmaha dagaalka wuxuuna la kulmay qaar ka mid ah generaalada hogaaminaya dagaalkan oo ugu horeeyo Generaal Ayub. Maxamed Cali Farcade ayaa daawadayaal waxaa la arkayay isaga oo la taagan Generaal Ayub isla markaana ballan qaaday in warbixin xasaasi ah oo guulaha ciidamada Puntland ku saabsan in uu soo jeedin doono, isla markaana shacabka ku xiran ayuu ka codsaday in laga warsugo oo halkan guulo waaweyn oo ciidamada Puntland ay gaareen uu ku soo tabin doono. dad badan oo reer Puntland ah ayaa aad ugu weeraray baraha bulshada oo yiri qalaas waa u dhamaatay ciidamadeena, saraakiisheena waa la dili doonaa, qaar ayaa la qaban doonaa, howlgalku uu fashilmi doonaa. sababtoo ah wiilkan ayay ku eedeynayaan saraakiil badan oo horay uu la kulmay iyo madax badan oo horay uu la kulmay oo qaar ay geeriyoodeen, qaar kabahooda ay ka carareen, qaar kalena ay u gacan galeen cidii ay markaas la dagaalamayeen. laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wixii uu qoray waa gooni oo lama dhihi karo hebel ayaa hebel u tagay waana la dilayaa ama waa la qabanayaa. waxay leeyihiin ninkan waa reer koonfur maxaa keenay gobolka bari, laakiin wariyaasha xuduud ma laha oo wariyuhu waxa uu tagi karaa hadba meesha uu doono gudaha wadanka iyo dibaddaba. haddii sifo sharci ah uu marana wuxuu awood u leeyahay inuu soo tabiyo xog kasta oo muujinaysa in wariyahaasi uu yahay mid soo bandhigi kara arin ka farxinaysa dadweynaha oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba aan wax u dhimaynin. Maxamed Cali ayaa laga sugayaa hadda inuu soo tabiyo xog dhameystiran. wararka qaar waxay sheegayaan in Generaal Ayub uu ku garabsiiyay in wiilkan uu tago furmaha dagaalka, isla markaana uu kala shaqeeyay in ammaankiisana laga shaqeeyo, ciidamada Puntland iyo meelihii ay qabsadeen iyo waxyaabihii loogu tagayna kaamiradiisa uu la dul tago, halkaas oo uu ku soo bandhigi karo dhammaan wax kasta oo macluumaad ah oo ku saabsan waxay u baahan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed ee dhulka buuraleyda waxa ka socda ah. dabcan dhulka marka loo fiiriyo hadda dagaaladu ay ka socdaan waa dhul aad u fog, dhul badan ayaa laga xoreeyay ciidamada Daesh ee argixisada ah, waxaana muuqata in dhulkaasi uu tagi karo Maxamed Cali isla markaana uu ka soo duubi doono wax alaale iyo wixii macluumaad ay halkaas ka jira. haddaba dadka weli ka caraysan miyaad ku jirtaa in Maxamed Cali Farcade uu tago furmaha dagaalka, mise waxaad leedahay gurma noqonayna gobnimadii ayaan ilaashanaynaa? Maxamed Calina halkaas hadii warbixin ka soo tabiyo ciidamada Puntland iyo wanaagoodan uu soo sheego waa nin Soomaaliyeed oo aan garab istaagayna. qaybta commentiga fikirkaaga saliimka ayaad noogu reebi kartaa. halkan hadii aad nala soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. mahadsanideen.